Ma ogeen in gabadha aan jeclahay lacag darteed ay ugu dhaafi doonto. Ma ogeen in gabadha aan jeclahay waalidkeedii lacag uu ku dooran doono. Wixii muddo aan hegleelayay ayaa mar qura waxaa lay dhahay waa la guursan rabaa. Gabadhu mar walba ayay isoo wici jirtay ayada oo ay lahayd halkee xal ka bilownaa, halkee wax ka raadinaa, aboowa ma isla dhuumanaa, ma isoo mehersanaa, anigu xal kala ma haayo. Ninku Maraykanka ayuu ka imaaday, wuuna i aroosi rabaa, cidda ayuuna lacag u keenay. Qisadaas xanuunka badan ayaa idiin soo gudbi doonaa. Waxaad ka daawanaysiin barta YouTube-ka aan ku leeyahay Socdaal 24. Jacaylku waa kan ugu xoogga badan ee qof walba oo bini'aadam ah ama noole ah qalbigiisu galo. Jacaylku waxa uu kugu soo maraa si qurux badan, mararka qaarna waxa uu kugu dhammaadaa si murugaysan. Markaas ayaadna midhihii caashaqa ee murugada gashaa, adiga oo islahaa waad ku guulaysanaysaa. Waxaadna go'aan ka gaaraysaa in jacayl dambe aada sameyn. Qof walba oo bini'aadam ah oo ku soo marane aad ka soo qaadaysid dhibkii hore ee ku soo gaaray. Maalmaha qaar ee dunida waa ay qurux badan yihiin, maalmaha qaar ee dunidana waa ay murugo badan yihiin. Aadamaha mar walba waxa uu jecel yahay in farxad uu ku noolaado. Jacaylka sidiisaba waa murugo socoto oo qofku waxaa la rabaa ereyada murugada iyo ooyintaba inuu wax ka yaqaano. Jacaylka inta badan waxaa la sheegaa in guushiisa ay timaado guurka kadib, jacaylka dhabtaana markaas uu imaado. Cabdiraxmaan waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxa uu ahaa wiil danyar ah oo duruufeysan, xaalad halis ahna ku noolaa. Sidaas oo ay tahayna mar walba waxa uu ku qanacsanaay nolosha uu ku nool yahay iyo sida ay tahay. Cabdiraxmaan waxa uu jeclaaday gabar la dhihi jiray Bishaaro. Bishaaro aad ayay u soo dhaweysay, waa xuural cayn, way qurux badantaa, waa ay dheertahay, joog iyo jamaagna Allah ayaa siiyey. Bishaaro waxa ay ku nooleed qoys aad u ladan, waxay sidoo kale ahayd hantiile. Iskuulka markay imaanayso baabuur ayaa lagu keeni jiray, baabuur ayaana lagu celi jiray. Magaalada meel walba ay ka rabtana sidaas oo kale ayaa loo wadi jiray, oo waxaan dhihi karnaa dhulka inay ku socoto ayaa loo diiday. Sidaas oo ay tahayna Cabdiraxmaan oo duruufeysan ayay xiriir jacayl oo qurux badan dhex maray. Cabdiraxmaan wuxuu ahaa arday dadaal badan oo tacliinta ka muuqato. Hadduusan kaalinta koowaad imtixaanka gelinna kaalinta labaad ma dhaafo. Xiriirkoodii quruxda badnaa ayaa sidaas ku bilowday. Bishaaro wiilka aad ayay u jeclaatay markay aragtay deganaanta, heelnaanta iyo quruxdiisa. Cabdiraxmaan labiska iyo feerada waxa uu ahaa mid si gooni ah oo Rabbi ugu deeqay, maadaama uu markaasi jeclaay dhiggiisa waxa uu wato sidoo kale inuu ku muuqdo. Cabdiraxmaan iyo Bishaaro xiriirkoodii jacaylka sidaas ayuu ku bilowday. Cabdiraxmaan ma uusan bixi jirin bareega oo inta badan fasalka ayuu iska jiray. Jalaatada iyo waxyaabaha kale Bishaaro ayaa u keeni jirtay. Labadoodu aad ayay isku jeclaayeen. Cabdiraxmaan mar walba waxa uu dhihi jiray Bishaaroy, anigu waxaan ahay qof ka soo jeedo qoys danyar ah. Inta uusan jacaylkaadi igu weynaan ma ii sheegi kartaa ama ma iga caawi kartaa sida aan kugu heli karo? Markaas ayay dhihi jirtay aboowe, aniga igu kalsoonaa oo wax walba aniga ayaa kuu sameynayo, waana guulaysanaynaa. Markaas ayuu dhihi jiray ma laga yaabaa inaan ku waayo, ma laga yaabaa dantii duruuftii inayna kala geyso. Hubaali waxaa ah Bishaaro haddaan ku waayo ilayskii dunida inuu iga damayo, nuurkii qalbigayga aan weynayo. Bishaaro hay cidleen, Bishaaro hay cidleen, waan ku jeclahay, qalbigayga ku weyn tahay, waad i hanatay, ee samee sidaan ku guulaysan lahayn. Wixii ayay muddo higlayeen
meel sare ayuu gaaray. Muddo 3 sano ayay wada socdeen. Hore ayaa waxaa loo dhahay jacayl aan lacag lahayn guul laguma wada gaaro. Cabdiraxmaan waa masaakiin, cuntada iska daa inuu cunee 3 waqti inuu helo ayaa halis ku ah. Iskuulkana si free ah ayuu ku bartaa. Bishaarana qoys ladan ayay ka soo jeedaa, inkastoo waxyaabaha qaarna Bishaaro Cabdiraxmaan ay ka xaliso. Maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa dhacay dawaq aan jecleen, kan duruuftana ceel u ah, qalbigiisana murugo ku reebayo, mar dambena jacayl inuu sameeyay ku adkaanayso. Cabdiraxmaan waxaa si xana ku soo gaaray meelaha qaar, mararka qaarna uu ka maqlay in gabadhii uu jeclaay nin Mareykanka ka yimaado uu aroosayo. Cabdiraxmaan waa uu yaabay, waxbarashadii ayaa habsiinka gashay, dadaal xumo ayaa ku bilaabatay. Iskuulkuu imaadaa, wuu ilimeeyaa, xaafaduu tagaa, wuu ilimeeyaa, cuntadii loo keeno waa la qubaa, isbitaal baa la geeyaa, negative ayaa la lahaa. Habeen ayay Bishaaro soo wacday, markaas ayay dhahday Cabdiraxmaanow abuu waxaan rabaa arrin inaan kaala hadlo, adiga oo dhib iyo arkeen isdeji, xal ayaa imaanayo. Markaas ayuu dhahay wax qalbigayga dhaawacay miyaa? Markaas ayay dhahday daawo walba gacantaada ayay ku jirtaa. Bishaaro waa ay ooysay, ilinta ayay cisho weysay ayadoo dheh Cabdiraxmaanow ninaan adiga ahayn ma jecli inaan guur la galo, laakiin wax walbo waalidka ayaa ka weyn. Sidaas oo ay tahay waxaan rabaa taada inaan kuu sameeyo. Markaas ayuu dhahay abbaayoy maxaa xal ah? Markaas ayay dhahday aboowe nin Mareykanka ka imaaday ayaa jiro, ciidana $7,000 ayuu siiyey. Anigu talada ayaa igu ciirsan, iskuulkii waa layga reebay, gurigana ma ka soo bixi karo, qunful ayaana gurigii saaran. Anigu xitaa haddaan ku arki lahay Cabdiraxmaanow waan kula dhuuma lahay oo waan ku soo mihirsa lahay, laakiin maxaan sameeyaa? Aragtidaadii ayaa la ii diiday, arooskaygina waa uu soo dhow yahay. Cabdiraxmaan waa uu baxay, xal raadi ayay dhahday. Adeeryaashiis ayuu watay. Gurigii markuu tagay ayaa la dhahay annaga adinku hadallo jees ah oo aysan mudneen marka gabar lagaa soo doonto in lays dhaho. Markaas ayaa la dhahay anigu gabadheenu waa aroos oo jimcaha soo socda ayay aroos tahay oo nin meelahaas ka imaada ayaa la siinayaa. Waan ka xunnahay, gabar ma insii karno, oo sidoo kale ciddiina oo kale gabar ma siino oo nagama dhexeyso ayaa la dhahay. Cabdiraxmaan ereygaas markii lagu soo dhahay waa uu ilimeeyey, wax uu sameeyay ayuuna aqoowayay. Kadib waa uu soo baxay. Adeeryaashii markaas ayay dhaheen madaxa ayaa dabka rabtaa, quraan saar ayaad u baahan tahay, gabadhaas ka samar oo qalbigaada ka tirtir ayaa la dhahay. Cabdiraxmaan wuu adkaysan waayey, waa uu soo baxay, guriga ayuu imaaday. Bishaarana sidaas ayuu arooskoodii ku dhacay. Bishaaro wax ay samaysay ayay aqooweysay. Sawiradii arooska laga soo qaaday ayaa waxaa ka muuqatay in aysan raali ka ahayn. Markaas ayay dhahday ubixii muddo aan higleelayay 4 sanaan jacaylkii jilayay, sidaan miyuu isku beddelay? Naftaan jeclaayay murugo kuuma quuro, waalidka baa dhibkan ka dambeeyey. Allo naftu xumaa, hadimadu xumaa, oo naftaa jecleed xumaa markaa weysid. Elinta ooyinta ceel badanaa, alla sidaan oo dhan miyaan jacaylkaygu ku waayay? maskiin ciilan baan ahoo, dantaa ii run sheegto ragnimo ma waayine, lacag baa cadow igu noqoto.
alla xanuun badana. halkaas ayaan ku soo afmeerayaa qisadii xanuunka badneed ee ku dhacday walaalkeen Cabdiraxmaan. muddo 4 sano ayuu jacayl higleelayay, jacaylkiisina hanti lacageed ayaa looga guuleystay. waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal. bartaa ka daawanaysiin waa barta YouTube-ka Socdaal 24. saaxiibka sharafta lahow ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan haddaad daawanayso waa ku mahadsan tahay. gaarsii bahda mucaashaqiinta si muuqaalkan ay u gaarsiiyaan saaxiibo badan. mar walbo ahaaw mid qalbiga bila'aadanka dhiso hormariyo, nafku jecel ha ku ciyaarin. waalidkana waxaan leenahay door oo labada qalbi oo isjecel isiiya si ay iskugu guulaystaan. tani iyo inta muuqaal noocan oo kala ku kulmi doono bahda mucaashaqiinta waxaa leeyahay waqti walba idin tahay ha idin wacnaato.